habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin qaramada midoobay ayaa ka digaysa in ismariwaaga u dhaxeeya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku saabsan doorashada ay halis gelin karto amniga guud ee dalka faahfaahin ayaynu idinkaga haynaa wararkeena kalena caawa waxa kamid ah ciidamada ilaalada qaranka oo wadooyinka la soo dhigay ka hor caleemasaarka Joe Biden ee Arbacada sanad kadib xayiraadihii Wuhan sidee bay nolosha caadi ugu soo noqonaysaa gobolka Hubei ee Shiinaha mas'uuliyiinta Roma oo isku dayaya habab cusub oo shimbiraha qurxoon ee Roma looga dheeraynayo taalooyinka taariikhiga ah waxaynu ku bilaabanaynaa magaalada Muqdisho halkaasi oo qaramada midoobay ay sheegtay in muranka sii xoogaysanaya ee ka taagan doorashada Soomaaliya uu halis gelinayo horumarka iyo deganaashihii dalka uu sameeyay waxa kale oo ay sheegeen in ammaanku uu halis ku jiro kadib markii ciidamada Mareykanka oo tababarayay kuwa Soomaaliya ay ka baxeen dalka toddobaadkan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ku eedeeyay siyaasiyiinta Soomaaliyeed in ay wadaan cabsi gelin kadib markii dib u dhac uu ku yimid doorashooyinkii baarlamaanka ee lagu waday in ay qabsoomaan bishii hore waxaa jira cabsi ah in ismariwaaga taagan uu keeni karo in dalka uu ku laabto dagaal qabiil laakiin saas oo ay tahay James Swan waxa uu sheegay in ay jirto weli fursad marka la eego doorashada soo socota fursad ayaa ka jirta halkan waxaan inta badan diiradda saarnaa muranka caqabadaha taagan iyo kala qaybsanaanta ka jirta in la isku soo dhawaado laakiin xaqiiqdii waxaa jirta fursad haddii hogaamiyaasha waaweyn ee Soomaaliyeed ay isku iman karaan haddii madaxweyne Farmaajo uu awoodo in uu soo bandhigo hogaankii loo baahnaa si cid walba uu isugu keeno si hore loogu socdo xisaabtana uu ku darsado fikradaha kala duwan ee la soo bandhigo waxaan isleeyahay fursad ayaa jirta oo lagu muujin karo in Soomaaliya ay soo martay xaalad adag tanina waxay noqonaysaa doorashadii saddexaad oo odayaashu ay qayb ka yihiin laakiin saas oo ay tahay bulshada ka tarjumaysa dadka ka faallooda xaaladaha amniga ee Soomaaliya waxay sheegayaan in bixitaanka ciidanka Mareykanka ay keeni karto in ay gacan siiso kooxda Al-Shabaab oo sanadihii ugu dambeeyay laga qabsaday dhul badan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay James Swan waxa uu sidoo kale sheegay in ay weli Al-Shabaab awood u leeyihiin in ay weerarto meel walba oo Soomaaliya ka mid ah shaki kuma jiro in Al-Shabaab ay weli tahay halis weyn oo taagan waxay leedahay awoodii dantii ay wadatay iyadoo bannaanka soo dhigta awood ay ku weerari karto goob kasta oo Soomaaliya ka mid ah nasiib darrana xaalku sidaa ayuu ahaa muddo sanooyin ahba waxaana hadda sii weheliya awooddeedii oo sii korortay oo siday dhaqaale u heli lahayd si ay u sii waddo howlgalladeeda xitaa iyadoo horumar laga sameeyey dagaalkooda haddaba si aan u falaqayno walaaca ay muujinayso qaramada midoobay iyo saameynta bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay keeni karto waxaa qadka Skype-ka magaalada Muqdisho toos ugu jira Xuseen Sheekh Cali oo ah madaxa macadka Hiraal Xuseen soo dhawow ma ku muuqata walaacan uu muujinayo ergeyga gaarka ee qaramada midoobay dabcan qof walba oo xogaala ayay walaacu u muuqdaa shabaab sanadihii la soo dhaafay awoodooda ciidan kaliya ma xoogaysanaynin laakiin sidoo kale waxaa xoogaysanayay awoodaha kaleeto oo ay ku dowladeynayeen dalka oo dhan oo ugu horeyso lacag aruurinta oo inta aan macadku uu shaqada bilaabay uu aad ugu kuurgalayay oo aan aaminsannahay in ay aad uga tiro badan sanad walba ay aad u labalaabanto marka waa walaacaas waa la wada qabaa waata Xuseen saad sheegtay walaacaas hadii la qabo ma kula tahay in tanaasul la isku sameyn karo sida uu James Swan sheegayna madaxweyne Farmaajo uu dhinacyada siyaasadda oo dhan isku keeni karo meel kale noo bannaan uma jeedo shabaab oo ah cadowga aan gidigeen wada leenahay haddii ahaan lahayd mucaarad iyo muxaafad dowladda ka wada mid ah waa in aan xilligan doorashada oo kala guurka ah aan u fahanno in ay haddii aan cadowga isha ka qaadno in uu ka faa'iideysan karo oo awoodda uu hadda u kordhaysay
ay aada ugu sii kororto. waa tahay saa sheegtay waxaad tiri cadowgu waa ka faa'iidaysan karaa haddii murankan doorashada hadda taaganna aanan baxalba loo helin marka ka faa'iidaysi noocay ah ama maxaaba dhici kara dabcan waxyaabaha dhici kara waa fara badan yihiin oo ilaahay nooma keeno in dee ay gacanka hadal gaarto waa iyada laftirkeedu waa waxyaabaha cabsida badan dadka ku wada abuuraya oo hadda inaanan loo helin wax xal ah doorashadii dalka oo ugu yaraan sanadihii doorashooyinka lasoo dhaafay loo yaqiinay inay mid caadi ah oo xasiloon kusoo marto. marka xasiloonidii doorashada haddii la waayo in ay dadkii hal meel kasoo wada jeeday in ay maaragtay colaad dhex marto. cidda keliya oo hadda aruursan oo nidaami ah oo awood dhammaystiran oo maaragtay dhan kala taaganna waa al-shabaab. sababtaas ayaa keenaysa haddii gacanka hadalku xataa uu dhaco inay iyaga noqonayaan cidda ugu dambeyn waxoo dhan gacantu wada geli doonaan. middaas ayaan marka ku dhiirigelinaynaa in ay siyaasiyiinta gaar ahaan dowladda madaxweyne farmaajo in ay dabacsanaan ka muujiso khatartaas in laga foojignaado ay ka shaqayso. waa tahay xuseen haddii dowladdii la yidhi dabacsanaan ha muujiso ama maadaama iyada hadda ay xukun ka hayso siyaasiyiinta ka soo horjeeda qaarkood ama inta badanba madaxdii hore ay dalka ayay wada ahaayeen maxaa iyagana looga baahan yahay inay qabtaan si waddanka heerka hadda uu marayo uu uga gudbo waxaa looga baahan yahay in ay laftirkoodu ay luqadda ay ku hadlayaan iyo isku aruurinta dadka kalsooni dhis in ay maaragtay sameeyaan laakiin waxay mar walba ku xiran tahay kalsoonida laftirkoodu ay helaan oo cidda cabsida ugu badan qabta waa iyaga. marka waa in cabsida ayaga laga saaro sidii iyaguna ay dadka dhan cabsida uga saaraan. aad baad umahadsan tahay xuseen oo ah macadka madaxa macadka hiraal. xuseen aad baad umahadsan tahay. kadib digniino ah in maraykanka ay ka dhici doonaan dibadbaxyo rabshado wata ka hor xafladda caleemasaarka Joe Biden 48 saac ee lasoo dhaafay jawiga waa uu xasiloonaa magaalada Washingtonna wadooyinka ayaa ku dhawaad cidla ahaa iyada oo magaalada ay ilaalinayaan kumanaan ka tirsan ciidamada ilaalada qaranka. guud ahaan dalka xarumaha dowlad goboleedyada waxaa weli ay ku jiraan feejignaan sare iyadoo maraykanka ay u tahay toddobaad xiise leh. Donald Trump waxa uu ka tegi doonaa aqalka cad ee maraykanka Arbacada taasoo calaamadeyn doonta dhamaadka muddo xileed dood badan ay ka taagnayd aqalka cad. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa warbixintan ku eegaya xaaladihii ugu dambeeyay maraykanka. muuqaallo cusub oo ku saabsan rabshadihii ka dhacay gudaha aqalka koongareeska maraykanka. xilligaasi kacdoonka koongareeska wuxuu u codaynayay guushii doorashada Joe Biden iyagoo dhex mushaaxaya miisaska senatarada. qaswadayaasha ayaa heray waraaqa uu leeyahay Ted Cruz oo ka mid ah taageerayaasha ugu xooggan madaxweynaha. ilaa iyo meesha ugu dambaysa ayuu u socday in uu wax naga dhaadhiciyo eeg diidmada in la tiriyo codadka doorashada ee gobolka Arizona. taniyo wixii ka dambeeyey maalintaas caasimadda maraykanka waxaa curiyaamiyey xayiraado amniga washingtonna ka dhigay go'doon. FBI-da ayaa ka digtay in taageerayaasha hubaysan ee madaxweyne Trump ay isku diyaarin karaan inay carqaladeeyaan caleemasaarka Joe Biden iyo Kamala Harris ee Arbacada. tani wuxuu noqon doonaa caleemasaar aan noociisa horey loo arag. saamaynta ugu weyn waa COVID-19 laakiin waana la dhaarin doonaa waana qaban doonaa shaqadiina loo xushay. taasna waxay ka dhigan tahay inaan xoogga saarno tusaale ahaan in dadka la talaalo. waxaan doonaynaa inaan dhammaystirno 100 milyan oo qof. sanad midkan ka duwan waxaa jiri lahaa dad tiro badan oo ku soo qulqulaya aaggan si ay goobjoog uga noqdaan caleemasaarka. cabsida rabshado badan ayaa laga dareemayaa dhammaan 50 gobol ee maraykanka. magaalooyinka xarumaha ahna feejignaan ayaa la geliyey iyadoo ilaalo hubaysan ay taagan yihiin bannaanka xarumaha dowladda. toddobaadka dhammaadkiisii waxaa jiray dibadbaxyo kooban oo ka dhacay gobollo faraku-tiris ah Ohio, Texas, Oregon iyo Michigan. laakiin ma jirin wax u dhigmay wixii ka dhacay koongareeska maraykanka 2 toddobaad ka hor. ciidamadan fariisinka ka samaysanaya marmarka dabaqyada dhismaha Capitol ayaa xusuusin u ah in arrimahani ka fog yihiin waqtiga caadiga ah. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa. warbixino ayaa muujinaya in ku dhawaad 70 ciidamada dowladda taabacsan iyo dagaalyahano Xuutiyiin ay ku dhinteen
dagaal xooggan oo dhacay dhammaadkii toddobaadka dagaalka ayaa ka qarxay geeska dekedda badda cas ku taale la yiraahdo Xudayda oo ay gacanta ku hayaan fallaagada xabajoojin ay qaramada midoobay taageerayso ayaa la filayay in ay Xudayda ka hirgasho oo ah goob ay ka soo degaan cuntada iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah kumanyaal ruux oo macluul laya kadib sanado dagaal socday maxkamad ruushka ku taal ayaa amartay in dhaqdhaqaaqaha mucaaradka ruushka la yiraahdo Alexei Navalny la hayo ugu yaraan 30 maalmood Navalny ayaa axadii ruushka ku soo laabtay kadib degdeg oo uu uga soo degay Jarmalkana waa la xiray Jarmalka ayuuna halka ku soo bogsanayay kadib markii sanadkii hore lagu sumeeyay sunta la yiraahdo Novichok waxa uu ahaa weerar lagu eedeeyay kriminalka isaga oo ka hadlayay dhageysiga maxkamadda ayuu ugu baaqay dadweynaha kuna booriyay inay wadooyinka u soo baxaan qaynuuno cusub oo xagga safarka UK ayaa maanta hirgelaya iyada oo la doonayo dhammaan ammaanka rakaabka iyo inay haystaan baarista in ay covid aysan qabin oo ah 72 saacadood iyo inay 10 maalmood oo karantiil ay galaan dadka ka yimaada dalalka aan looga baahnayn inay karantiil galaan sabab la xiriira caabuqyadooda oo hooseeya ayaa iyana la joojiyay 10 maalmood ayaana karantiil ayaa laga yareynayaa haddii baarista lagu helo 5 maalmood kadib mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaas oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqayn dheeraad ah wararka ugu waaweyn iyo si aad u hesho wararka ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter Instagram wali waxa inoo soo socdaa caawa qaybta dambe idinkugu haynaa mas'uuliyiinta Roma oo isku dayaya habab cusub oo shimbiraha qurxoon ee Roma looga dheeraynayo taalooyinka taariikhiga ah qaybta dambe caawa ayaan idinkugu haynaa qadar yar oo nasasho ah kadib caawa iyo caalamka ayaad wali daawanaysaan aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn qaramada midoobay ayaa ka digaysa in ismariwaaga u dhaxeeya siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku saabsan doorashada ay halis gelin karto amniga guud ee dalka
ciidamada ilaalada qaranka ee Mareykanka ayaa wadooyinka la soo dhigay ka hor caleemasaarka Joe Biden ee Arbacada. sanad ka hor toddobaadkan oo kale Shiinaha wuxuu soo rogay xayiraado lagu horjoogsanayo faafitaanka fayraska corona. waa markii la arkay halista fayraska uu Shiinaha iyo caalamkaba u leeyahay. wariyaha BBC-da Shiinaha Stephen McDonald ayaa booqday Hubei 2020 markii ay xaaladda maraysay meel aad u xun. iminka ayuu dib ugu noqday meesha ay ka bilowday xaaladda caalamka oo dhan gilgishay. waa kan Cabdiraxmaan Bidhaan oo inooga warrama. waxay ahayd bilowgii xaalad safmar oo caalami ah oo faafaysay 60 milyan oo qof ayaa xayiraad lagu soo rogay kadib markii aanu halkan soo gaadhnay bishii January 2020 sanad kadib dib ayaan ugu soo noqonnay isla meeshii si aanu xaaladda dadka u ogaano. markii hore halkan aynu taagannahay laftigeeda ayaa waxaa lagu joojiyey booliska bar control laakiinse iminka toos ayaad u soconaysaa. sidee baa xaalka safmarku yahay waqtigan? xaaladdu waa caadi. sidii berigii hore? waa un sidii hore oo kale. iminka meesha aan doono ayaan tegi karaa. 2 bilood ayaan ganacsigayga xiray. dhulkan haddaba miyiga ah dadka ayaa noo sheegay inay iminka xafladihii aroosyada sidoodii u qabsadaan. gobolka Hubei laguma arag fayraska muddo 7 bilooda. afdaboolkuna qasab maaha iminka inaad xidhato. sidaad aragtaan shaqaalihi ayaa ku soo laabtay jidadka iyagoo cuntada karinaya. sanadkii hore January sidanoo kale may jirin. xaaladda safmarka ka warran ma rajo qabtaa? rajo fiican ma qabo, wuu soo noqon doonaa. markaanu ku soo dhowaano caasimadda gobolkaba saxmadda ayaa sii badata. markaad eegto dadka oo aad uga badan kuwii hore ayaa waxa ay joogaan shaariciyada, waxaana dareemaysaa habdhaqanka dadku inuu isbedelay. waxaana dadka kaaga ifaysa kalsooni badan oo ay dawladda ku qabaan inay xakamayn karto fayraska. taasina waxay keentay in dadka kalsoonidiisu ay aad kor ugu kacdo. waxaanu iminka soo gaadhnay Wuhan oo ahayd ubuucdii coronaviruska. ma malayn kartaa in 11 milyan oo qof oo reer Wuhan mar ay ku jireen xayiraadda halkan lagu soo rogay haddaba dadku kamay caban. dibaddu way naga duwan yihiin. xorriyad ayay ka hadlayaan iyo inaan xadba jirin. waa iska socotaan kontarool la'aan. aniga waa bandow. xir albaabka, nadiifi magaalada. natiijaduna waa ay fiican tahay. shaki kuma jiro in Shiinuhu si fiican u xakameeyeen fayraska, laakiin propagandada dawladdu waxay leedahay annaga uunbaa ugu fiican oo wax qabanay. maalmuhu dilaacay fayraska dadka waa laga mamnuucay inay ka digaan xaaladdiisa. lamana oga sida fayrasku ku bilaabmay ilaa hadda. laakiin bilo adag kadib ayaa magaaladu dhirbaaxada ku dhuftay coronavirusku ay dib caadi ugu soo noqotay. sidaasoo tahayna meelo badan oo caalamka ayaa rajayn lahaa inay sida halkan oo kale caadi dib ugu soo noqdaan. aafada fayraska corona sida aad warbixintii hadda ku daawateen oo ah halkii ay ka soo bilaabatay Shiinaha weli dunida way la tacaalaysaa. noocyo cusub oo ka mid ah fayraska corona ayaana soo ifbaxaya kuwaasi oo faafistiisu ay kii asalka ahaaba ka sii badan tahay oo ka bilowday cudurka. saynis yahanaduna waxa ay darsayaan noocyadan isbedelay oo ay ku jiraan kuwa laga helay waddankan UK, Koonfur Afrika iyo dalka Brazil si ay u fahmaan saamaynta ay ku yeelan karaan tallaalada la sameeyey. haddaba sidee buu fayraskan isku bedelaa? tallaalkana weli si sax ah oo wax ku ool ah ma uu shaqayn karaa? Bella Sheego ayaa arrimahaasi oo dhan warbixintan ku eegaysa. tallaalka wax ma ka tari karaa nooca cusub ee xanuunka COVID-19? saynis yahanada ayaa leh wax uu ka tari karaa, laakiin baaritaano ayaa socda. waa maxay sababta? coronavirus waxaa ku dahaaran borotiino. tallaalkuna borotiinadaas ayuu beegsanayaa. waa borotiinka kor u kaca ee fayraska. borotiinka kor u kaca ayaa ku dhega unugyada jirkeenna. tallaalkuna wuxuu keenayaa in nidaamka difaaca jirkeenna uu samaysto nooc u gaar ah oo kuwan ah.
tani waxay gacan ka geysanaysaa soo saarista unugyada difaaca jirka iyo unugyada T. caqabadda ayaa ah in fayrasyadu ay kobcaan iyo inay sameeyaan isbeddelo fara badan oo yaryar oo ku dhaca borotiinka kor u kaca. tani waxay keeni kartaa nooc cusub oo fayraska ah wuxuuna noqon karaa mid aad la isugu gudbin karo ama la isku qaadsiin karo oo aanu aqoonsan karin tallaalka sameynaya unugyada difaaca jirka. laakiin ma jiraan wax tilmaan ah oo ku saabsan kiiska noocyada ugu dambeeyay. tallaaladuna si fudud ayaa loo bedeli karaa. laakiin dadka qaata noocyadii hore ee tallaalka waxaa laga yaabaa inuu ku yaraado difaacii ay filayeen. markana wararka ciyaaraha ee caawa aan ku bilaabano kubadda cagta ciyaartii xalay ee Liverpool iyo Manchester United waxa la filayay in ay noqoto kulankii ugu adkaa xilli ciyaareedkan balse waxay ku dhamaatay barbaro niyad jab ah oo aan gool bala dhalin. maamulaha United Ole Gunnar wuxuu sheegay in naadigiisu aysan ka faa'iideysan fursado ay ku tumi kareen naadiga horyaalka haysta ee Liverpool. natiijada ayaana ka dhigan in United ay wali halka sare ay ku jirto balse Manchester City ayaa ka kormartay Liverpool oo gashay booska labaad kadib markii ay 4-0 kaga badiyeen Crystal Palace. wali kubadda cagta aynu ku jirnaaye horyaalka Ingiriiska caawa Arsenal ayaa waxay martigelinaysaa Newcastle. haddii Gunners guuleystaan kor ay ciyaarta u kacayaan oo liiska kala horeynta ay meel sare ka galayaan. Newcastle ayaan 8 ciyaarood wax guul ah helin dhammaan tartamadii ay galeen. Arsenal hadda waxa ay ku jirtaa booska 11aad ee horyaalka Ingiriiska. ciyaartoyga qadka dhexe ka dheela ee la yiraahdo Mesut Ozil ayaa garoonka tababarka ku macsalaameeyay naadigiisa Arsenal. Turkiga ayuuna sababa caafimaad xalay ugu safray ka hor wareegistiisa lama filaanka ee naadiga la yiraahdo Fenerbahce ee wadanka Turkiga. ciyaartoygan 32 jirka ah ayaa ilaa iyo bishii March aanan u ciyaarin Arsenal wuxuuna ka baxay ciyaartoyda kooxda ee u safatay horyaalka Ingiriiska iyo Europa League. muddo ayaana lala xiriirinayay naadigaas Turkiga laga leeyahay. xilliga jilaalka Roma waxa ay uga dhigan tahay xilliga shimbiraha. ilaa iyo 4 milyan oo shimbira ah ayaa isugu yimaada caasimadda Talyaaniga marka ay ka soo hayaamaan Yurub iyo qaaradda Afrika. shimbirahaasi dhibaato ayayna leeyihiin. waa shimbiro aad u qurux badan laakiin saxaradooda ayaa dhalisay khatar. maamulka magaalada Rome ayaa isku dayaya habab cusub oo lagu dhaqaajiyo shimbiraha oo meel kale loogu weeciyo. aadan maxamed cabdi saalimiin ayaana ka waramaya. fiidkii Romanka qoobka ciyaar weyn oo dabeecadda ayaa ku qulqulaya masraxa. qoobka ciyaar sida qiiq madow oo kale ah muuqaal iswaafajin si qurxoon u neefsanaya. shimiruhu waxa ay u haajiraan jilaalka koonfurta ilaa Afrika iyaga oo ku hoyda habeenkii bartamaha Rome si ay u kululaadaan iyaga oo u duulaya qaab ay uga fogaanayaan ugaarsadayaasha. agaarka goobaha qadiimiga ah waxa ka bilowday isku day cusub oo wax looga qabanaya dhibaatada. cod gunuunaca ayaa lagu tilmaami karaa iyaga oo magaalada ku soo bandhigaya farshaxan yaab leh. laakiin saxarada shimbiraha ayaa qurmisay Roma sida meel wasaq badan oo kale. waxa aan ku simbirixday sagxadda markii ay dhooqada ahayd. ninkani waxa uu yidhi adduunku wax walba waa uu ikhtiraacay marka laga reebo dabageliska shimbiraha. agaarka goobaha qadiimiga ah waxa ka bilowday isku day cusub oo wax looga qabanaya dhibaatada. mas-uuliyiinta magaalada ayaa iftiin laysara ku shidaya shimbiraha geedo aanay jeclayn taasoo ku kallifaysa inay horey u socdaan. mashruucu waxa uu diiradda saarayaa xudunta dalxiis ee Roma si loo nadiifiyo muuqaalkeeda. tani wax cadaadis ah kuma keenayso shimbiraha. waxay u eg tahay mid iyaga dhibaato ku ah. waxa aan ka shaqeeyaa shaqadan laakiin dhab ahaantii waxaan ahay qof deegaanka jecel. kama joojinaysa inay seexdaan keliya waxa aan u shaqaynaa inay helaan meel kale. inkastoo iftiinka laysarku aanu dhib lahayn baaruuddu sidaasi ma aha. habeenkii sanadka cusub halkan shimbiro ayay baaruuddu ku dishay. sawirada ayaa aad loo faafiyey. haddii aan arrintan la maarayna waxa ay keeni kartaa musiibo.
romaaniyiintii hore shimbiraha waxaa loo arkayey inay oggolaadaan rabitaanka alle. qarniyo badan xayawaanadan dhalaalaya ayaa sii wada booqashada. sida ay dadka iyo dabeecaddu u wada noolaan karaanna waa dhibaato weligeedba ka jirtay magaalada. quruxda shimbiraha ayaynu daawanay. ugu dambayntiina caawa waxaan idin hayaa oon idinkaga tegayaa nin meelaha dhaadheer fuulo oo shil gaari ah markii hore naafo ku noqday 10 sano ka hor ayaa koray dhismo dhirirkiisu yahay 250 mitir. Hong Kong ayuunu ku yaalaa isaga oo fuushan kursiga ay ku soconaya. Lee Jay Wai waxa ay ku qaadatay in ka badan 10 saacadood in uu dhismaha nina la yiraahdo fuulo. waa mid ka mid ah dhismooyinka Hong Kong ugu dhaadheer. arrimaha badqabka ayaana ka joojiyay inuu meesha ugu sarreyso karo, balse wuxuu sheegay in uu doonayo inuu diro fariin ah in dadka naafada ah aan loo arag dad tabar daran oo aan waxba qabsan karin. xusno wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna caawiya caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiinna. intaan habeen dambe kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo dhammaan asxaabta barnaamijka shaqeeyey. habeen wanaagsan, nabadgelyo.